السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo noqod wanaagsan daawadayaal waa Saad Cabdirasaaq Yacquub channel. weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkeenii barashada QuickBook. casharkeena toddobaad ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa creating invoice. habka loo abuuro invoice. invoice waa maxay? invoice waa qaansheegad. qaansheegad kulli af Soomaaliga waa sidaas. qaansheegadka waa marka qofka uu deyn ka qabo ama deyn qaadan rabo warqadii aad u jari lahayd ama qaybtii aad deynta ugu record gareyn lahayd ama ugu keedin lahayd. invoice aad u abuurto maxaa lagaaga baahan yahay? invoice aad u abuurto waxaa lagaaga baahan yahay in items ay ku xareysan yihiin horta ilaan waxaad iibinaysid waa shayyaal waaye. shayadii waa inay ku xareysan yihiin. casharkeena lixaad waxaynu ku soo qaadanay habka loo xareeyo itemada. marka ilaa dhowr item waa inaad soo xareysataa. tusaalihii waynu soo aragnay adding item list. waxaynu soo aragnay saas oo kale adding customers. customerada sida loo xareeyo. customerkaaga hadduu cusub yahay waynu arkaynaa. laakiin customerka haddii uu yahay mid horay kugu keydsanaa oo macmiil hore ku ahaa uma baahnid inaad macmiil cusub ahaan u diyaarisid uma baahnid. marka haddaad gasho qaybta create invoices isla markii waxaad ka dooranaysaa magacii macmiilkii hore u keydsanaa. laakiin hadduu cusub yahay waa inaad dhahdaa new customer job. waa yahay casharkeena maanta aynu bilaabano creating invoices. si aad u abuurto invoice waxaad tegaysaa qaybta customers ayaynu tegaynaa. customer markaad gasho waxaad ka dooranaysaa create invoices ayaynu ka dooranaynaa. waa halkan aad u jeedaan create invoice markaad doorato waa yahay customers ayaynu furnay. create invoice ayaynu dooranay. markaad doorato maxaa kuu soo baxaya? dialog boxkan ayaa kuu soo baxaya. dialog boxkan kuu soo baxay qaybtan customer job haddii uu cusub yahay customerka haddii uu yahay mid cusub halkan ayaad ku qoraysaa. ama hadda waxaa noo keedsan customerkiina casharadii hore aynu soo diyaarsanay ahaa Ibrahim Aadan Cali. casharadii hore waad xusuusataan. haddii customerka mid ku xareysan ama macmiilka uu yahay mid ku xareysan waxaad ka dooranaysaa halkan macmiilkii. haddii laakiin uu cusub yahay waxaad ka dooranaysaa halkan aynu soo dhaweysano. qaybtan waa add new customer cusub markaad ku darsanayso waa halkan markuu cusub yahay. markii macmiilka mid hore u keedsanaa uu yahayna waa halkan ka hooseysa. inta ayuu kuu soo dhigayaa dhammaan customeradii kugu keedsanaa QuickBook. waa yahay hadda customer noo xareysan ayaynu deyn siinaynaa. halkan ayaynu furnay. waxaynu ka dooranay Ibrahim Aadan Cali customerka la yiraahdo. qaybtan quantity iyo item code description iyo price each aynu soo zoom gareysano. qaybtan quantity waxaad ku qoraysaa tirada shayga aad qofkan deen ahaan u siinaysid inta uu yahay. item code halkan waxaad ka dooranaysaa shayga aad iibinaysid magaciisa. waa item list. casharkii lixaad saan usoo xareysana waad aragteen. shayada ayaa halkan kuu soo geli doonaa. price each shayga qiimihiisa wuxuu yahay isaga ayaa soo baxaya. qiimihii aad soo gelisay shalay cost iyo wuxuu ahaa sell. cost waa qiimaha aad kusoo iibisay. sellna waa qiimaha aad iibinaysid. marka qiimihii aad iibinaysa ayuu halkan kugu soo qori doonaa. amount tirada totalka ah ee shayadii ayuu halkan soo dhigi doonaa. waayahay aynu aragno hadda waxaa noo xareysan alaab aan horey u xareeyey sida computero printero iyo mobile phones ayaa ii xareysan aniga. aynu aragno halkan markaad furto soo zoom garay waxaad u jeedaa inta computer laptopna uu xareysan yahay isagana mobile phone ayaa xareysan printers ayaa xareysan. marka intan waa item list aan horey usoo xareysanay waxayna ka mid yihiin inventory part. saad u jeedaan inventory partiga ayay ka mid yihiin. waa yahay intaas ayaynu iibinaynaa. hadda alaabta noo taalla waa intaas. quantity tirada aad siin rabto labo ayuu qaatay waxay ahaadaanba. haddana inta imow qaybtan ayaynu nimid item code inta ayaad furaysaa.
muxuu qaadanayaa shayada uu labada ka qaadanayo waa maxay printers ma printers miya mobile phone miya laptop miya printers ayaynu doorano printers isla markii halkan wuxuu soo saaray each printer inuu noogu fadhiyo ama aan ka siin rabno macmiilkan $265 intan waxaa noo taala amountigii totalka ahayd oo ah 530 qaybtan hoose waxaad ka arkaysaa balance due qofkaas lacagta laga rabo 530 waa inuu soo zoom gareysana markaa waayahay waynu zoom gareysanay saad u jeedaan qaybtan waxaynu gelinay printerkii tiradii qaybtan shayga aynu ka iibinayno inta price-ka automatically isaga ayaa soo baxaya price-kan halkuu ka imaanaya wuxuu ka imaanayaa alaabihii ku xareysnaa qiimahooda ayaa halkan soo gelaya halkan waxaa kuu soo bixi doona wadartii totalkii alaabahan laba lagu dhuftay 265 530 sidaas ku soo baxday qaybtana waxaa taala totalkii lacagihii waaye markaas kadib waxaad leedahay save and close ama save and new haddii macmiil badan ay warqado kugu qoran yihiin oo aad rabto inaad xareyso shaqooyinkii maanta aad soo qabatay deemihii dhammaan ayaad rabtaa inaad xareyso iyagoo ku record gareysan oo invoice-adii manualka ahaa lagu soo qoray si aad QuickBook uga xareyso haddii halkaas invoice uu yahay waxaad dooranaysaa save and close haddii laakiin ay badan yihiin invoice-ada save and new ayaad leedahay save and new markaad dhahdo wuu ku xareysmayaa qofkaas deentiisa halkaas ayay gelaysaa aynu doorana hadda save and close macmiilkana ma jiro aan xareynayno laakiin haddii uu jirana save and new ayaa dooranaysaa save and close ayaynu dooranay save and close markaad doorato wuu baxay markaa dialog boxkii wuu xirmay save and close ayaa dooratay wuu xirmay okay halkeen ka fiirinaa marka lacagahan deymaha ah ee aan siinay waa muhiim casharada soo socda ayaan si fiican ugu arki doonaa laakiin dhaqdhaqaaqa barnaamijyadaada mar walba waxaad kala soconaysaa mar walba qaybtan reports la yiraahdo reports aynu soo zoom gareyno qaybtan reports ayaad kala soconaysaa halkan reportskan markaynu halkan furno waynu arki doonaa waxa ku dhex jira reportskan waxaad kala soconaysaa dhaqdhaqaaqa ama hawl maalmeedka ganacsigaaga ayaad kala soconaysaa deymaha maqan lacagaha kaashka ah inay xareysan yihiin in waxaasoo dhan waxaad kala soconaysaa reports waana qayb aad muhiim u ah waayahay reports ayaanu furnay markaad furto aynu soo zoom gareysano waxaad ka dooranaysaa reports markaad furto company and financial halkan ayaanu furaynaa company and financial markaad furto company and financial waxaad kasii dooranaysaa balance sheet standard markaad doorato balance sheet standard muxuu kuu soo qoray qaybtan wuxuu kuu soo dhigay aynu zoom gareysano marka hore qaybtan assets hantida taala current asset lacagtii account receivable hadda account receivable waynu soo sheegno account aynu soo abuurana ayuu ahaa account receivable waa deymaha naga maqan halka ay geli doonaan inta maxaa yaala 530 kan waa deyn uu qabo macmiilkii hadday aynu usoo record gareynay deyn kale kama maqna hadday deyn kale maqnaan lahayd halkan ayuu balaas kusoo dhihi lahaa oo kusoo dari lahaa inventory asset alaabaha hadda dukaanka taala waa laba tiradan inta ah tiradan halkan aad uga jeedaan waa alaabaha dukaanka taala 27,000 total current asset waa 28,280 waa la isku daray iyadoo la isku daray account receivable iyo inventory asset-kii marka la isku daro ayaa waxay noqonaysaa intan total asset-kii waa 28,280 liability deymaha iyo waxyaabaha maqan opening balance wuxuu ahaa lacagihii aan ganacsiga ku furnay waxay ahayd 28,250 laakiin halkan waxaa saaran net income wax la yiraahdo net income-ka waa qaybtan net income-ka waa faa'iidada alaabihii labadii printer ee aan iibinay labadii printer waxaa noo saarnayd min $15 halkan wuxuu soo dhigay lacagihii qaybtan yar aad u jeedaan wuxuu noo soo dhigay $30 waa faa'iidadii laakiin inta ganacsiga aan gelinay waa halkan 28,250 lagu daray 30 waa 22,000 iyo intaas marka waa 28,250 lagu daray 30 waa inta total asset-ka macal faa'iidadii waxay isku jiraan waayahay marka waxaan filayaa inaad fahanteen casharkaas marka halkaad kala soconayso mar walba dhaqdhaqaaqa ganacsigaaga waa qaybta la yiraahdo balance sheet standard waxaadna ka soo gelaysaa halkan reports la yiraahdo waxaad dooranaysaa company and financial kadibna waxaad ka sii dooranaysaa
balance sheet standard qaybo kala badan ayaa halkan yaala laakiin intaas waa waxyaabo kale loo isticmaalaa laakiin hadda balance sheet standard ayay muhiimadda noo saaran tahay marka balance sheet standard markaad dhahdo waxaad kala soconaysaa dhaqdhaqaaqa ganacsigaaga waa halkan deymaha kaa maqan lacagaha aan deposit fundska lacagaha aan la xareynin waxyaabahaas kulli marka waxaan rabaa inaan idin sheego qofka kaa iibsanaya lacagaha ama qofka cash wax kaaga iibsanaya uma baahnid inaad invoice u qorto qofkaas wuxuu kaaga baahan yahay inaad receipt u diyaariso receipt inaad u qorto ayuu u baahan yahay marka qaabka receiptka loo xareeyan waynu arki doonaa qofka cash wax ku iibsaday laakiin invoice waxaad u qoraysaa qofka deynta kaa qaadanaya marka casharkeena maanta halkaas ayuu ku ekaanayaa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina asxaabtii hore noogu xurneed aad bay u mahadsan yihiin asxaabta nagu cusubna waxaynu ka codsanaynaa inay subscribe saaraan page-ka oo ay la wadaagaan asxaabtooda oo ay sii share gareeyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu